السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دماغ سلام يا أمة الصومالية ميل الله لم يشهد دونك كجوكتان وحامد الله يحي بش يبرواقه كنا على كليب كان يروحان صوت دوبي كليب يروح شلي صوت دوبي أيو كليب كان دبا صعدا كليب كشلي أن صوت دوبي أو أنت وحنا فهمت هذا أما ضدك عن مسكحة وناكسن الله كم النايسن أي سقالة وقعتين أيو كليب كان دبا صعدا كليب كاسو كليب majority dumarka Soomaaliyeed kula hadlayay oo aan laha waxyaalaha fooshaxun sawirada aad gashanaysaan telefoonka sawirada aad mobiladiina aad ku kaydsanaysaan walaalayaal iska daaya ayuu ahaa anigu balse dad ayaa si kala u dhigay oo hadalkii gabar walaashay ah oo marnaba xumaan iga mudnayn marnaba aanan caayi karin afkaygana aanu caydeeda soo qaban karin afka la ii galiyay ayaan horta rabaa inaan ka hadlo gabadha walaashay Safiyo Tusma waxaan leeyahay walaashay macaanay horta hadalkayga haduu si kala kuugu dhacay ama si qaldan kuugu yimi aad baan kaaga raali gelinayaa adigana kuulama jeedin majority ahaan dumarka Soomaaliyeed ee waxyaalaha qaabka daran ku dhaqma ayaan ka hadlayay runtii midaan adiga gooni ku ataagayay ama adiga gooni kuugu socdayna wallahi iga tahay oo ma aha taas waan ka raali gelinayaa hadalkayga haduu ku dhibayna كوني كوتشر وحنقول إيه إيجا رالي نقو كليب كاسي وعكاس ضد كسيدة قلدان وقعتي هذا الكيجا وحنا قرأت هذا وحبة فهمين أنا قلت اسمه معاين مرنبه ما أنا عاي كرو كي وحن ما جي قبلها الصوماليات أنشح مضى قاب دردا فيديو يضح حن تلفون هذا كوكايت سنة رنت مركز يسكو شيئا ومتى الصوماليات رنت ما تشغله ومتى الصوماليات رنت كم هشوا ومتى الصوماليات بدأ يبربق عنده هبطين يكونوا راحتهم gabdha ayaa jira oo maalba sawiradooda leedii soo dira gabdha ayaa jira oo maalin walba sawiradooda aad aragtaan oo dadka ku taageeraysan oo u dirtaan oo nin Soomaaliyeed isagoo soo doono ka yeelayo iyadoo sa u daawanaysa waliba duubaysa laga duubay ayna hab ku tahay gabdhaha la hadlay horta gabdhahaas ay ahaayeen aniga oo leeyahay gabdha Soomaaliyeed baad tihiin gabdha diin islaam ku dhashay baad tihiin gabdha sharaf baad tihiin famil qurux badan baad ka soo jeedaan familkiina iyo walaalihiin iyo magaciinaba u naxa markaad canaananaysid macnaheedu ma aha inaad caayaysid ama aad ku diganaysid dad fara badan waan arkayay aniga oo qabyaalad ahaan u soo galay meesha oo qabyaalad ahaan u difaacayay tusmo balse ma waxaayin anigu tusmo ay aniga walaalayaal igama mudna mana caayin madaxay saaran tahay gabdhaho dhan baan la hadlayay hadaad clipkayga ka soo saartaan tusma sidan iyo sidan ah ya aniga ayaa xaal bixinaya anigu tusmo ma caayin marnaba mana caayi karo dumarka Soomaaliyeed dhan baan la hadlayay kuwa badan oo hadda ogahay ayaa jira oo nimankoodu ay ku haystaan fiidiyoyo inta iskula hadleen laga duubtay oo hebel iyo heblaayo toban oran karno hebel iyo hebel la oran karo oo naagahoodii ay qabeen intay kaliya ka duubteen iyagoo live kula jira fiidiyo ah say doonaan ka yeelay maantana leh waan ku soo dhigay hadaan lacag keenin oo ku balaag meel gareeya gabdhaha Soomaaliyeed horta taasi waa taas gabadha walaashay Tusmo marnaba ma caayi karo waa gabar sharaf leh waa gabar fanaanad oo qiimo leh waa gabadh aniga marnaba afkaygu aanu soo qaban karin oo aan jeclahay runtii lagama yaabo inaan anigu Safiyo Tusmo intaan meel soo fadhiisto aan caayo taasi waa taas ta kale waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed haddaan idin leeyahay markastana waan idin leeyahay waa dayacantihiin waa dhibaataysantihiin nin oo baa idin sasabanay ninkii markuu wax walba idin ka duubto soo doono idin ka yeelo waad soo cabaadaysaan hadhowtana waad soo cabaadaysaan waxa ku jira hadalkaygii dadka fiidiyoyada iska duubaya qaabkooda iyo qaabka ay u dhigan yihiin waa run hooyo 40 jira ama 50 jira oo 60 jira oo fiidiyo iska duubtay boodhigeedu sidoo yahay adna waad ogtahay walaalo anna waan ogahay anigu kuma lihi waan qurux badna gabadhii soo caayaysay anigu waxaan leeyahay adigu caay hadaa doontid laakiin aniga lagama yaabo gabar Soomaaliyeed inaan halka soo fadhiisto inaan caayo xasha dhaqankaas ma lihi laygumana soo korin laygumana dhalin lagamana yaabo gabar Soomaaliyeed in aan meel u soo fadhiisto abuurta ilaahayna alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahayga sida ii abuurtay aad baan ugu xamdinaqayaa meel iga dhiman lixdayda laxaad ma jirto ma garata qof walbana sidoo u egyahay iyo sida sumcadiisu tahayna taariikhda ayaa qorta oo meel bay ku taalaa Soomaad garan fanaaniintuna walaalayaal ma wada xuma
dad wanaagsan oo sharaf leh oo dhaqan leh oo balwad lahayn oo kaale araga ayaa ku jira taasna fanaaniinta waan ka raali gelinayaa dhankayga aawaday caydii la soo caayay waxaan leeyahay raali ka ahaada waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed haddaan idin sheegayaa 40 jir 50 jir video aad wada aragteen oo aad daawateen waad ogtihiin sidoo ahaa sidoo ekaa gabadhii laga soo duubay boodhigeeda sidoo ahaa waad arkayseen waadna garanayseen qaabka u dhigmanaa waad ogeydeen huyuuma lama tusi karin naa kale ayaanan daawan karin soo ma ogidin naa kale ayaa daawan karin foolxumada boodhiga uu yahay iyo siduu yahay taa un banana sheegay maceeb kala sheegay yes aniguna iyaga un baan ka mid ahay haddaan isqaawiye maanta oo anoo boodhigaygu qaawayaha aan duubo dee quruxi kama muuqato anuu idimaba odhan dee kaygaa qurux badan oo kiinaa xun waxaan idhi gabadh dabacday oo jidhkeedii dabcay oo jidhkeedii sida noqday oo jidhkeedii sidan ah maxay iska soo duubaysaa taasna haddaan idin leeyahay oo been ma aha meel walba wuu ka dabcay meel walba wuu ka qalloocday meel walba wuu ka bedelmay inaad shaygaaga qarsatid hadduu foolxun yahay iyo hadduu qurux badan yahayba baa fiican Soomaalidu waxay tiraahdaa sixun wuxuu sheeg sixirka darane hadallada aad rogrogaysaan islaamka aan shaqada isku lahayn aad afka isu gelinaysaan waxaan idin oran lahaa Soomaaliyeed iska daaya dad aan shaqo isku lahayn afka ha isu gelinina gabadhaas aniga marnaba caayigama mudno balse waxyaalaheena iyo qaladaadkeena iyo dayaceena inaynu ka hadalno aynu iska canaanano ilaahay baa ina faray hadduu qaldan yahayna u hiiliyo qaladka ka qabo hadduu saxan yahayna u hiili baa la yidhi Soomaal garan marka anu gabdhaha Soomaaliyeed waan canaananayay waxaana lahaa waxaan maalin walba gabadh cusub oo ooyaysa bil walba gabadh la fiidiyooyaa la iga gudbiyay waxaan maqli jiray aridaasad kama ilbaxo dumarka Soomaaliyeed maanta hadday gabadhan ku dhacday maanta hadday mid kale ku dhacday maanta hadday tii hore ku dhacday adiga maxay berri kuugu dhacaysaa adiga maxaa kuu keenay maad ku qudro qaadatid gabadhii kaa horeysay kilibyadeedii dibadda soo dhigay maad ku tusaale qaadatid gabadhii shalay kaa horeysay wixii ku dhacay maxaa maanta ku geliyay war hadduu ku yiraahdo 100 milyan baan ku siinaya ee video ii soo dir ama video ii duub ama kaale life isku aragne walaalay adoo dharkaaga gashan haddaa doontid ninka la sheekayso haddeerna waan ku leeyahay dumarka Soomaaliyeed waa dayacan yihiin badankooda أنا إذن الله هادرنا وايد الله يهاي برينا وايد الله يهاي ساعد دمبنا وايد الله يهاي تي كحناقة صح كحناقة تي أنا جهدوا يسوع عايز إسكا كيسوع عايزه والله قبل ما تي عايزي أدي أد بانو قصلي يلا وحنا الله يهو ولا شيء ما سهل تدي عاي هدا دونتد أنا قوم مرحنا بقى أنا كو صفريستو وانكو عايو حشا كله قبل صوماليات أنت مر صفريست يا عن عايو وهبينك حالي هاي تجي بس هذه فيديو لسكون رادي ليو وإرساقات دي هالكا إنك كشيء وحن لا يحي إلى هاي إرساقات وناكسن هاي نصيو ميل وناكسن هاي نجا جليو مركا وحن لا يحي ومدى الصوماليات كليب كاس ينسي قلتن لو قادم ينسي قلتن لو فصيران ين قبل لا ولا شيء أفكار لسكون كاي جليني قبل كلو فنانة أنا هنا ولا شيء ده معاين ما أنا إجا قبض يا الحمد لله رب العالمين كليب حن ونقف Soomaaliyeed ku caayayo ama ku aflagaadeynayo lagama yaabo inuu kilibiyada social media hayaacayo uu noloshayda aan dhigo ama uu ku jiraba kilib aan leeyahay oo aan qof si xun u caayayo taa lagama yaabo Soomaaliyeed karan marka waxaan idin leeyahay intii caydana waxaan leeyahay idinka aakhiro leedin weydiinaya intii amaantana waxaan leeyahay thank you very much dumarka Soomaaliyeed walaalayaal haddaan idin leeyahay oo baraan idin leeyahay waa dayacantihiin waadayacantihiin ninkaaga ama saaxiibkaaga wuxuu doonaba ha ahaado hala duubin video walaalay video hala duubin baritu soo dayno ka yeelaya raggeeni waad aragtay qaar qurmay oo xun baa raggii baabiyay qaar daran baa raggii baabiyay Soomaad garan raggu ma wada xumo qaar baa xun qaar ka xunna waxaan leeyahay Ilaahay ha soo hadeeyo idinkuna nimanow ina gabdhihiini inaad maalin walba aabahooda la soo fariisataan habeen walba nimankiina wareegaya ee gabdhaha masaakiinta ah beenta u sheegaya ee la gabar qurux badan baa tahay wallahi gabar reer magaala tahay wallahi gabar bela ka dhacdaa tahay ya shalayna waa eraygaas isagoo ka raba dana gaar inuu ka helo iyaduna ilaa waa dhagweyna waxba ma fahanteen
ismooda inay tii ugu quruxda badnayd ugu qiimaha badnayd ugu reer magaalaysnayd ya ugu reer magaalaysnayd ay tahay. raggii Soomaaliyeed sidaasay noqdeen waad aragtaan say u dhaqmayaan siday yihiin waxba idiima harin jirkiina iyo boodhigiina insaa loo dhigayo dibadda waad aragtaan kuwii ay qabeen baasaa yeelaya mid aad la sheekaysataa siduu ku yeelaya. marka waxaan leeyahay anigu in runaan ka hadlay nina macaayin intase waxaa ku dhaqantaan kuu sheegaya naaga waaweyn oo 40 jiro oo 50 jiro oo 60 plus ba waxaad arkaysaa kule teleefankayga private baa sawirro iigu jiraan maxaa sawirro private kuu gelinaya waxaad qarsanaysid muxuu tahay waxa intaad ka qurux badan tahay waa intaa yara wajiga markaa 60 plus tahay jid ma haysid anaa hadda kuu sheegaya 40 ka daran 50 ka daran kala daran kulligiin marka walaalayaal quruxdii waa la soo cunay waad ku soo raaxaysateen waad ku soo dhasheen intaasoo ubada alla idin siiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhaha haddii ilaahay nin idin siiyana nimankiina haysta haddii aanu idin siinina walaalayaal guryihiina jooga soo ma idin garan. marka waxaan leeyahay anigu gabadha walaashay ah walaalayaalow afka yaan la isu kaaya gelin tusmo waxyaalo xunxun oo serious kama oolin markii runta loo hadlo wax serious kama oolin social media wax yar iska simbila mooyee aanay laakiin aanan anagu u baahnayn ama dadkii jeclaa aan u baahnayn inay arkaan baa horta ka soo baxay. iyadana waxaan leeyahay walaashay waan ka xumahay wax allaale wixii kugu dhacayba nin xun oo nijaasa ku helay oo qaab daran raggii qaar sidaasa ku jira ilaahay ha soo hadeeyaan isagana leeyahay adiguna waxba qalbadaada xumaan ha gelinin wax weyn oo ka soo baxay ma jiraan balse hadda iyo ka digtoono ayaan ku leeyahay dadka hadallada sarifa say wax uga faa'iidaan waxaan jirin dadka ka sameynaya waxaan leeyahay horta ilaahay ka baqa dad islaana tihiin shilinka ka idinka soo galana irsaaqadeedii ma aha shilinka halkaa kaa soo galana waa xaaraan maqdaca waxa idin wada waalaya oo idin wada baacinaya oo idin wada eryaya ya waa xaaraanta aad wada cunteen ee aad islaanka dhiigooda oo waxba idin yeelin ya qof aan waxba idin yeelin inaad caydaan horta waa falxum soomaad fara qof aan waxba ku yeelin oo waxba kaa galabsan oo even aqoonin oon adiga ku caayin qofaan adiga ku caayin waxaad haysaa soo irsaaqad xumo maaha qof aan adigaba ku aflagaadayn dumarka Soomaaliyeed oo dhan qofna mas'uulka ma aha aniguna mas'uulka ma ihi adiguna mas'uulka ma tihid aniga haddaad caydana no problem ummadda Soomaaliyeed qof walba uu yaqaana meesha uu taariikhda kaga jiro. marka taana waxaan leeyahay intii soo caayaysaana iyo in kalaba haddaa haydii hadhay isoo caay haddaa doontaan. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed xumaan baa idinka soo hadhay wanaag alla idima tusin wanaagoo dhan waad ka didaan wanaagoo dhan cudur baad ka qaadaan. anigu taa dhalay xitaa hadday isa soo dhigto war taa dhalay hadday isa soo dhigto iyo tu ila dhalatay hadday isa soo dhigto ya I don't care iyada isa soo dhigtay alla dhigo alla caayo sidii la doonaha loo galo of course iyada ummadda Soomaaliyeed isku soo daysay iyada dad islaana istustay iyada ummadii oon u jeedin istustay. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed horta wax fahma ilaahay aqligana ha idin siyaadiyo aqligiinu aad buu daciif u yahay sababtoo ah caafimaadkiina baa kala dhiman qofka markuu caafimaadkiisu kala dhiman yahayna waxyaalo badan ayaa ka maqan hadalkana bini aadankana ma fahmaba oo si kale u qaata haddaad ammaanaysid xitaa caybu moodaya iska daa wax kale haddaad ammaanaysid inaad caayaysid buu moodaya. marka waxaan leeyahay كليبكم وحنو صار دوبي والمركز أنا كل علينا ولا شيء صفيه تصمو أنا عايق ممضنا ما أنا عايق كرم أنت قبيلك كوسو أتاكتينا وحن لا يعني ولا شيء أديك قدم بكتيرة أديك أنا جالس عايق أنا قدام بعيد عايق إن هذه قبتي دو وانسين باي أحد إن أديك أنا جالس عايق أنا قول أديك هو بعد السياح حيدا أديك قول الدم دي بعد السياح بعرض أنت عن قريب أدوم بيجلس يدقي سامد قرن كوا عم يسكف عنين أو عاش وملح هاين أنا ولا هاين على عقل الدمر كيس Soomaaliyeed بقول كي بس ديت أنا فهمت هذه الشيء دامج باكون عاي دمر كSoomaaliyeed أنتوا ضبطن وحوي مسكحية بان وعافمات قبل أنا هذه الشيء مسكحية بان وعافمات قبل هذا كمر كساء وتراد صاص وقاضنيا هذا كساء وتراد صاص وقاضنيا مركب ولا على يارو حان الله هاي ورتاني أنا عاية بعد دونتا وروح حد دونتا ده
oo aniga caaya laakiin gabadha islaameed ha isku kaayageelina oo afka ha isku kaayageelina gabadhaas xumaa nagama dhaxayso waa gabadh walaashay ah kun iyo kow jeer baan la iga raali noqo kliibkayga hadday daawatay way arkaysaa waxaan iyada ula dan lahaa oo gooni ama jirin gabdhoo dhan baan ka hadlayay kuwa wada muruxsan ee wada qaawanaysa u jiifjiifa meelahan ogahay kuwa ma ka hadlaa kuwa maxaad u caayi weydeen وإذا كان صفيتوس ما دبلا حيسته صفيتوس ما عشان حمى بدل ما عرق صفيتوس ما وح وين وكسب بحي واحد نكيس دون كان يعني ونكيد دي أنا نقول مقلة وايس دون كان لكن تدكو سكر أي فهمه صاحب بحث على وجه جيا سيدا حتى عني قبل على سوق هاي تصير أفكر السوق هاي جلية بيوحي كده جيا نكالنا إنه نكال عن قبل إلا تمني ستهاي ولا لتير قف الرواية دجانا ده قف عيسى معها انت حماتي حسرتها وضع كحن فنانينتا بعد دنيا كنا بقول كي بس ديتر وحنا مثلا فنانينتا كحنين ومضى الصوماليين حن يا حسرت يا حاسنم يا نباتو يا لجوي يا قسيسنم يا انت حجابكي إسلامك لوجو ترجعي انت كشرع واحد دونان سمينيان وماشي دونان لما ريان وحجابك قرابليان بعد دنيا كبوحة انت أصلا وحالي إلهي هسوه هديو دمانتينا وحنا دلائي ولا ليال xumaantaa ka shaqaynayna balse waxaan idin oran lahaa hadalka intaadan jawaabin weligaa dhageyso oo faham weligaa dhageyso oo faham markaad fahantay kadib ka soo jawaab hadal aan cidna loo wadin inaad adigu xambaarsatid oo dusha iskaga rogtid anigu waxaan u aqaana caafimaad darro waxaan ilaahay caafimaad ha idin siiyo fahamka allaha idin hagaajiyaan idin leeyahay fikirka ilaahay ha idin kordhiyaan leeyahay wanaagga ilaahay ha idin ku shubaan leeyahay wanaaggi waad ka tagteen ilaahay ha idin soo hadeeyaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed haddana waa idin leeyahay برهنا وايد الله ساعة بنا وايد الله ولا ليالو نمكن السودي بيسان إسكداية نمكن واحد ركتين سيدايهين هاي السودي بنا هآمنين وركاكولا شيء في تلفون كاج هودي بين تلفون كان يري وكالو مكرا ولا جا حد كرا سودانو نقم كرا تلفون كان يري انت على كالو مكرا وحد صور عاد سلاده حقوق خصونا عاد وقشليسد وحنونكو كمديه حنونك أيو كمديه مركب حان الله ولا ريال إذا هي عفما تام دمانتين هاينا وضسيو إن صور هذا إسكداي كتران له عاد ما يراح كشانيسان كوا عليه يقصون عن دقيقة كتورة صامد فهمين كوا يقصون عن دقيقة والله كتورة سنة تلفونك كايجي تري ولي بركة الصومالية وحان الله ولا ريال قبله نونحا adiga ayaa gabadha suuqa gelinaya adiga saa doontid ka yeelay adaa doon sida fiidiyowga doontid ka duubanay adaa sida doontid wala dhaqmay berrina adaa soo caayay marka waxaan leeyahay rago idinkuna dumarkiina hadayacina oo cayda iyo foolxumada iyo afligaadada ka daaya iyo dilka waliba kuwa dilayana waan arkay Soomaaliya garan marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan ilaahay hayna soo wada hadeeyo ilaahay xumaanta haynaga qaalay keen jeclaysiiyo ilaahay nimankeenana ha soo hadeeyo ayaan leeyahay intaasan klibkay ku soo gabagabeynaya ninna anigu ma aflagaadeyn ninna ma caayayo intii hadal iga dhacay cidii xumaan u qaadatayna waxaan leeyahay ka raali noqdo markasta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh